بسم الله الرحمن الرحيم وهبينمو 4 أو قميص أي سوق ليسو كوبيا طبانك بشا فبراير سنة كاللبكن لباتن يلح أو كوبهاغن صدح يلباتنك بشا شعبان سنة كن أفر بقول أفرتن يتضبا تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي قبانها قضبدا آن إذين كوهينانا وحا كمدا ترام ينتياهو أو وضحد الله البابدو أيو حرينيهين كله أقل كعد iyadoo arrimo waaweyn miiska u saaran yihiin arrinta ugu weyn waa Iiraan inkastoo Gaza iyo xaaladaha kale ee gobolka laysla lafagurayo Netanyahu oo ay qasab ku noqotay in albaabka dambe uu ka soo galo aqalka cad haddaba maxay tahay sababto warbixin ayaan idinkaga haynaa Mareykanka oo caawa ku dhawaaqay in ciidankiisa uu kala baxayo mid ka mid ah saldhigyada uu ku leeyahay bariga dhexe sababo la xiriira xiisadan colaadeed ee ka aloosan gobolka duqayn dhimasho dhaawac u geysatay arday dugsi quraan oo ka dhacday masaajid ku yaal gobolka Kordofaan waqooyi ee dalka Suudaan waaxda muraha dibadda ee Mareykanka oo shaacisay digniin heerka afraad ah oo muwaadiniintooda loogu baaqayo in aysan booqan 27 wadan oo 7 ka mid ah yihiin Carab sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aridii kugu hayaana waxay ku aadan tahay baarlamaanka dalka Turkiga oo maanta dagaal feer iyo falalaab leh uu ka dhacay kadib markii ay gacanta isula tageen xildhibaanada muxaafadka iyo mucaaradka dhamaan qodobadan iyo waliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha kala daawadayaan wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. Warbixino qoraal ah, warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. Ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. Waa hagaag kulankii u dhaxeeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa intii aynu barnaamijka ku jirnay soo gabagaboobay inta aan idin soo gudbin waxyaalaha hordhaca ee kulankaasi ka soo baxay iyo hadal la yaab leh oo Trump uu jeediyay waxaynu marka hore eegaynaa arrinta la xiriirta galabta arrin dhacday waa xilliga Mareykanka markii Donald Trump waliba subax weeyaan ilaa 12 subaxnimo ilaa 12 subaxnimo xilli wadahadalladu ay bilowdeen laakiin 3 saacadood ayay wadahadallo toos ah lahaayeen Netanyahu iyo Donald Trump waxaana la sheegay wadahadalladu inay ahaayeen kuwo albaabadu ay u xirnaayeen laakiin intii uusan Trump soo gelin raali ahada Netanyahu intii soo gelin aqalka cad ayaa banaanka oo dhan waxa isqabsaday banaanbax lagu taageeraya Falastiiniyiinta wadadii uu ka soo gelin lahaa aqalka cad ayaa banaanbax isqabsaday Netanyahu marka waxay qasab ku noqotay albaabka weyn ee hore aqalka cad inuusan gelin laakiin gadaal uu ka soo galo sidaas waxa xaqiijinaysa warbaahinta Israa'iil haddaba aynu eegno warkan Netanyahu ayaa waxa la sheegayaa in isagoo kulan kula lahaa aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uusan isticmaalin albaabka hore kadib markii la maqlay baa la yiri qaylada dibadbaxayaal taageersan Falastiin warbaahinta Israa'iil ayaa warkan tibinaysa wargeyska iyo dhaco taxrinood ayaa caaw wuxuu qoray in kulanka u dhaxeeya Trump iyo Netanyahu uu markaasi ka dhacay aqalka cad waxaana uu sheegay in si weyn kadinka hore looga maqlayay waa meesha laga soo galay aqalka cad dibadbaxayaasha taasi oo la sheegayo in markaa keeni kartay in uu maqlo isla markaasna kaamirooyinku ay qabtaan wargeyska Haaretz asna Israa'iil ka soo baxa ayaa waxa uu leeyahay wax sawir lagama qaadin Netanyahu markuu xagga dambe ka soo galayay aqalka cad jiriirdu waxay taasi ku dartay in wadahadallada madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil ay yeesheen inta badan diiradda lagu saaray arrimaha ee la xiriira Iiraan sidoo kale wargeysku waxa uu sheegayaa inay u badan tahay Netanyahu in isku dayi doono Trump inuu ka dhaadhiciyo inuu ka fogaado wax heshiis ah oo sida hadalka loo dhigay jilicsan oo lala galo Iiraan isla markaasna aan ku habboonayn qodobada Israa'iil ay aaminsan tahay arrintuna aysan noqon oo kaliya nuclear-ka laakiin lagu soo daro arrimaha barnaamijka gantaalada Iiraan iyo sidoo kale taageerada ay siiso Iiraan kooxaha iska caabinta
kulankan dhex maray Trump iyo Netanyahu ayaa waxaa la sheegayaa in uu qorshaysnaa toddobaadyada soo socda, laakiin Netanyahu ayaa waxaa la sheegayaa inuu dalbaday in la soo hormariyo kulanka, taasi oo keentay in marka laga soo hormariyo kulan la filayay in uu ka qayb galo Netanyahu, kulankaasi oo yeelanayaan guddiga arrimaha dadweynaha ee Mareykanka u qaabilsan ururka la yiraahdo IPAC oo ah urur u ololeeya arrimaha Israa'iil. haddaba intaynu barnaamijka ku jirnay warar baa ka soo kordha arrintan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa la sheegayaa in uu sheegay inaysan wax weyn oo heshiis kama dambaysa ka gaarin isaga iyo Netanyahu wada xaajoodida ay yeesheen. Trump wuxuu yiri waxaan Netanyahu kala hadlay arrimaha laga sameeyay Mareykanka Gaza iyo horumarka guud ee ka dhacay iyo guud ahaan gobolka. waxaan rajaynayaa buu yiri Iiraaniyiintu markan inay caqli yeeshaan oo sidoo kale u dhigay wadahadallada aan la yeeshay Netanyahu waxa heshiis kama dambaysa lama gaarin marka laga reebo yiri adkaysiga ku aadan si wadista wada xaajoodida la leeyahay Iiraan. halka marka maxaa lagu macnayn karaa? waxaa lagu macnayn in la leeyahay in Trump uu ku adkaystay in la sii wada xaajoodka oo arrintu aysan ahayn arrin Netanyahu waxa la wuxuu watay oo ka aqbalay, laakiin muxuu yiri waxaan ku adkaystay in wada xaajoodada ay sii socdaan. aynu ku socono marka warkan iyo waxa ka soo kordhay hadda intaynu barnaamijka ku jirno. wariye ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo ku sugan aqalka cad ayaa hadda wuxuu soo tebinayaa in kulanku 3 saac uu socday. waxaana la sheegayaa sida wakaaladda warbaahinta Israa'iil ay sheegayso in Netanyahu uu isku dayay inuu ka hortago Iiraan in heshiis haddii la gaarayo heshiiskaasi uusan yeelan waqti cayiman ama waqti uu ku dhici karo, macnaha 5 sano 6 sano 10 sano inuusan yeelan, laakiin heshiiskaasi uu noqdaa mid aan dhicin sida hadalka loo dhigay. waxaa kaloo wargeyska Washington Post oo ka soo xigtay sarkaal Mareykan ah oo sheegaya in inta badan arrimaha Gaza laga wada hadlay, gaar ahaan in loo gudbo wejiga labaad ee heshiiska xabad joojinta. sidoo kale waxaa la sheegay in ay u muuqanayso inta badan in la isku raacsan yahay arrimaha Gaza, taasi oo macnaheedu ay tahay arrinta Iiraan inay tahay doodda ugu weyn ee taagan. madaxweynaha Mareykanka isaga qari sida hadda warbixinta ugu dambaysa ay sheegayso. wargeyska The Times of Israel ayaa isna wuxuu ka soo xigtay dhanka Israa'iil ee la wareediye sheegaya in Tel Aviv ay u sheegtay Mareykanka in ay diyaar u tahay, waa Israa'iil in kaligeed ay diyaar u tahay inay fuliso weerar military oo ay ka fuliso Mareykanka Gaza iyo waliba Iiraan. telefishinka Canal 12 Israa'iil laga leeyahay ayaa isna waxa uu tabinayaa in si cad Netanyahu u soo bandhigay aragtida ah Israa'iil inaysan ka labanlabaynayn weerar inay qaado. waxaana sidoo kale ka mid ah qorshaha haddii Qatar ay dareento Israa'iil oo dhanka Iiraan ka imaanaysa inay tilaabo qaadi karto oo heshiis oo aysan arrintaas heshiis ku xirnaan. laakiin dad badan waxay isweydiinayaan Israa'iil ma ku dhacdaa arrintan kaligeed? haddii Mareykanka dagaalkan uusan la gelin ma ku dhacdaa ayaa la isweydiinayaa. qobarada militariga gaar ahaan kuwa Mareykanka waxayba leeyihiinba diyaaradaha Mareykanka ee B-52 suurtagal waxa in lagu soo rido Iiraan markan. maxaa yeelay waxa la leeyahay nidaamyada difaaca ee Ruushka iyo Shiinaha ayaa la keenay gobolka sida ay sheegayaan mas'uuliyiin ka tirsan, waa sida ay sheegayaan khubaro ka tirsan khubarada Mareykanka. waaye haddaba arrintan iyadoo ay socoto ayaa waxaa la sheegayaa Mareykanku caawa in uu ku dhawaaqay ciidankiisa inuu kala baxayo saldhigga military Al-Tanf liirada wuxuu ku yaala bariga waddanka Syria. waxaana la sheegay in loo rari doono waddanka Jordan. 2 ilood oo xogaal ayaa warkan xaqiijiyay. saldhigga Al-Tanf waxa uu ku yaala meel istiraatiiji ah oo ay ku kulmaan xuduudaha Syria, Urdun iyo Ciraaq. waxaana la aasaasay saldhiggaasi 2014 isagoo xarun u ahaa iyo xudunba howlgalka isbahaysiga caalamiga ah ee ka dhanka ah dagaalyahanada ISIS. hagaag haddaba qaybtan dambe waxaan idinku soo gudbinaynaa falaqayn ay bixisay gabar ka tirsan macadka daraasaadka siyaasadda ee caalamiga ah. waxaana ay iftiiminaysaa oo ay leedahay Israa'iil waxay ka walaacsan tahay barnaamijka nuclearka ee Iiraan, laakiin iyadu ma ogola in laga hadlo nuclearkeeda. gabadhan waxaa la yiraahdaa Faylis Pence, waxaana ay sheegtay in qiimaynta ugu dambaysa ay muuqanayso Mareykanka suurtagal inay tahay in Iiraan in Israa'iil ku raaci doono dhammaan arrimaha la xiriira in Iiraan laga ilaaliyo
nuclearka inay samaysato laakiin waxay leedahay arrinta walaaca waxay tahay oo xitaa gobolka walaac ku haya Israa'iil ma ogola in laga hadlo nuclearkeeda laakiin waxay doonaysaa in laga hadlo nuclearka iyo barnaamijka gantaalada Iran waxa kaloo arrimahan ka hadlay nin khabiir ah oo isna la yiraahdo Scott Ritter wuxuu leeyahay suurtagal waxa ah Iran in Mareykanka ay ku tiraahdo barnaamijkeena gantaalada ma ka hadlaynaa ma waxaad doonaysaan 400 oo kilomitir inay ku ekaadaan ha waaye soo fariista adinkuna marka diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil waxaa la rabaa in lagu xiro nidaam caalami iyo kormeer lala socdo 400 oo kilomitir ayaga inaysan dhaafin xitaa xuduud Israa'iil soo dhaafi karin annaga sababtoo ah gantaaladeena soo Israa'iil qatar kuma ahan anagana qatar waxaa nagu ah diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil macnaheedu marka waxay noqon kartaa buu leeyahay qabiirka inaan laga yeelayn Mareykanka adinku gantaaladiina 400 oo kilomitir ku ekeeya oo ay soo dhaafin gacanka Beershiya hadday ugu bataan wadamadan khaliijka dariska ah bay gaari karaan laakiin Israa'iil ma gaari karaan laakiin Israa'iil diyaaradaheeda dagaalka ha noqoto F5 iyo F22 iyo F18 meesha doonaan bay duqeyn karaan cid yeelaysa marka maleh buu leeyahay qabiirka marka wuxuu leeyahay arrintan waa arrin aan suurtagal ahayn adigana awooddaadii dhin gacmaha laga xiro cidda iska soo horjeedaana dhagaxanaha loo dhiibay iyo waliba ulo saas ku mataalaya qabiirka hadalkiisa adinka laftigiina ra'yiga nagula wadaaga qaybta hoose ee fariimaha وهاجاك wixii warar ah ee arrimahan ku soo kordha intaynu hawada ku jirna ama barnaamijyadeena dambe ayaan idin kugu soo gudbinaynaa waa hagaag imika waxaynu soo gaarnay sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aalab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen imika waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh maanta baarlamaanka waddanka Turkiga feeraha la iska tumay waxaan la soconay toddobaadii ugu dambeeyay buuq ka taagnaa baarlamaanka Soomaaliya inkastoo de baarlamaanada adduunka ay ka dhacda arrintan ay ka dhacdo buuqan uu ka dhaco laakiin maanta gacanta la isku tigay dhiigga shaxleeyay si kale kuma garantide barorta intaan la sheekada idin faahfaahin muuqaalkan aynu daawanayo wixii dhacay waaya haddaba waxaa leeyahay waxaa si xun isugu gacan qaaday xildhibaanada muxaafadka iyo xildhibaanada kale ka tirsan mucaaradka arrintan waxay ahayd baa layiri magacaabista wasiirka cadaaladda maanta uu magacaabay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan gacan ka hadal iyo feer ayaa ka dhacay baa layiri xarunta baarlamaanka intii lagu jiray fadhi dood adag laga yeeshay wasiirka cusub ee cadaaladda xildhibaano ka tirsan xisbiga talada haya ee AKP iyo kuwa mucaaradka CHP ayaa isfeeray oo markaasi gacanta isula tagay waxaana xiisadan la sheegay inay ka dhalatay magacaabista bacdama ninkan uu horay dacwad ugu soo oogay mas'uuliyiinta xisbiga CHP intii uu ka tirsanaa kooxaha dhanka garsoorka ee waddankaasi Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul waxaana lagu soo warramayaa in goobtii fawda ay ka dhacday qaar ka mid ah xildhibaanada gaar ahaan kuwa mucaaradka ayaa waxaa la sheegayaa mid ka mid ah in ay sheegeen in uu soo gaaray nabar sanka ka soo gaaray waxaan la arkayay baa la yiri dhiig dhulka lagu arkay taasi oo markaa muujinaysa arrintu inay ahayd gacan ka hadal aad u culus waayahay waa marka golaha sharci dejinta isku bedelo goobtii feerka ama ringihii feerka waa hagaag inta ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo